qofka jacaylku ciyaarka ah bilowga hore lama garto maxaa wacay matalaada aad ayuu u yaqaanaa waxa uu ku fiican yahay sida uu xeeladihiisa u hirgeliyo si qofka gacantiisa ku jira uu u hanto waxa uu adeegsadaa taatikooyin kala duwan marka aad dareento in qofka aad wada socotaan uu yahay qof aan jacaylku dhab ka ahayn si gaar ah u fiiri calaamadahan si aad u xaqiiqsato dhagartiisa aadka u badan qodobka koobaad qofka jacaylku ciyaarka ah aad ayuu u masir kulul yahay way ku adag tahay in uu u dulqaato in shakhsiyaad kale uu kugu ag-arko maxaa yeelay waxa uu dareemayaa in dhibaato ay ku soo food leedahay saaxiibo kuma ogola ma jecla inaad saaxiibo cusub yeelato ama dhanka shaqada ama cid kula saaxiibto aad ayuu u xanaaqaa marka uu agtaada ku arko qof ay qaraabo yihiin ama isaga wax un ka yaqaan qodobka labaad dadka aad jeceshahay in uu kaa fogeeyo aad ayuu u jecel yahay arrinkaas si meel gooni ah uu kula baxo waxa uu jecel yahay in uu cid kasta kaa fogeeyo waxa uu jecel yahay sidoo kale raadinta in dadka aad danaynayso ama dhibaatadaadu ay dhibayso inuu kaa fogeeyo si uu dantiisa kaaga gaaro iyadoo cidna aanay waxba dareemin saddex qofka jacaylku ciyaarka ah waxa uu yaqaanaa sida uu howlihiisa u socodsiiyo iyadoo aan cidna dareemin afar waa shakhsi sun badan oo yaqaana sida uu wax u qiyaamo xilliyada qaar waxaad arkaysaa in uu aad u xanaaneyn badan yahay xilliyada qaarna aad ayuu kugu adkeenayaa labada dhinac xirfad sare ayuu u leeyahay waxa uu u daran yahay xilliyada qaar oo uu kugu soo jeedinayo erayo xanaf leh oo uu kugu bahdilayo si uu kugu tuso in qiimahaagu uu aad u hooseeyo marka uu arko in aad fogaanayso oo aad xaalkiisa soo fahmayso waxa uu kugu soo jeedinayaa istiraatiijiyad cusub oo tii hore ka duwan si uu mar kale kalsoonidaada ku hanto hamoodin in uu marnaba kuu dabcayo maxaa yeelay waa qof ku raaxaysta dhibaatada dadka kale si uu waxa uu doono kaaga samaysto marka hore waa in uu hamijab kugu rido oo ixtiraamka aad naftaada u hayso uu jabiyo iyadoo kalsooni aad isku qabto xilliyada qaar waxa uu qiranayaa si uu waxa uu doono kaaga samaysto marka hore waa in uu hamijab kugu rido oo ixtiraamka aad naftaada u hayso uu jabiyo iyo kalsoonida aad isku qabto xilliyada qaar waxa uu xaqirayaa si bareer ah arrimahaaga marka hore hal eray oo xanaf leh ayuu ku bilaabayaa marka xigana waxa uu ku soo celcelinayaa eraya xanaf leh oo aad u tiro badan qodobka lixaad wuxuu ku dareensiinayaa in aad dambiilo tahay dadka noocan oo kale ah waxa ay qofku ku qasbayaan in uu qirto dambi aanu galin waxa uu yaqaanaa istiraatiijiyad uu kaaga dhigi karo inaad adigu tahay qofka qaldamay si kastaba waxaa hubaal ah inaad kala garan karto qofka daacadda ah iyo qofka ku qiyaama ee dhibaatada kugu ah lagama yaabo qofku ku jecel in uu ka hor istaago saaxiibadaada iyo dadka ku jecel maadaama uu og yahay in aad xilli walba ka wada joogtaan qalbiyada waa marka uu si dhab ah ku jecel yahay qofka marnaba yaa lagugu qiyaamin jacayl been ah